tutorialkan waxaan qaadanaynaa kii afraad wuxuu ku saabsan yahay ama tababarka afraad wuxuu ku saabsan yahay how to add variable product oo noocyo kala duwan leh sidee usoo gelinaysaa. Si aad usoo geliso waxaa marka hore muhiim ah inaad abuurto attributes. Si aad attribute u abuurtid waxaan haysanaa attribute color ah iyo sidoo kale waxaan haysanaa attribute size ah oo saddexdan variable mid walba leh. Okay, waxaan tagaynaa meesha ku qoran tahay attributes. Marka attributes tagno waxaan dooranaynaa attribute size, kadibna waxaan leenahay button, kadibna waxaan leenahay add attributes. Marka attribute ka abuurno waxaan kala abuuraynaa terms kiisa oo ah variables. Waxaan leenahay for size waxaan haysanaa configure terms. Marka furno halkaan tagaynaa size waxaan leenahay 46, sidoo kale 45 isagana size kale weeyaan. Halkaan tagaynaa 45, sidoo kale halkaan soo qaadanaynaa waxaan dooranaynaa 40. meesha waxaan set gareynay size oo aan ka baxnay. Hadda waxaan abuuraynaa isla attribute kale oo color ah. Si aan abuurno halkaan tagaynaa waxaan u bixinaynaa color, kadibna waxaan leenahay color waaye, kadibna waxaan leenahay attribute kaas waxaan leenahay okay aan leenahay attribute okay. markaan dhahno configure terms aan leenahay colorska aan haysan waxaa ugu horeeya yellow color, waxaan leenahay colorkan waxaa la yellow. inta waxaan qaadanaynaa colorka oo yellowgiga ah ama jaalihii ah, kadibna waxaan leenahay add new. sidoo kale waxaan haysanaa color ay qoran tahay beige, waxaan leenahay beige isagana waxaan dooranaynaa color oo beige ka camal iyo wax u dhow beige, kadibna waxaan leenahay add new. sidoo kale waxaan haysanaa color kale oo blue greenish ah, isla halkaan dooranaynaa. inta waxaan soo qaadanaynaa blue oo greenkii camal u dhow, greenka u dhow soo qaadanaynaa. we have blue. tan kadib waxaan leenahay okay aan leenahay. marka waxaan haysanaa meeshaan blue, beige iyo sidoo kale waxaan haysanaa yellow oo xagga colorka ah. waxaan hadda abuurnay colorkii, waxaan rabnaa inaan isticmaalno oo productigaas aan abuurno. si aan productigaas abuurno waxaan tagaynaa add new. marka add new dhahno waxaan abuuraynaa producti aan rabno inaan samaysano. si productigan informationkiisa saxan ah u gelisid muhiim waaye inaad haystid folder ka mid ah desktopkaaga ay ku jiraan dhammaan productyada aad rabtid inaad gelisid. marka aniga waxaan isticmaalaynaa kabahan oo aan rabno inaan soo gelino. waxaan leenahay kabahan waxaa la MPL aan lahaa kabahan MPL fashion shoes. kadib waxaan leenahay product image noo soo qaad, upload aa leedahay. hal mar waxaan qaadanaynaa kan, control aa qabanaa kan iyo kan qaadanaya saddexdaas. marka intiiba qaadano kadib waxaan leenahay kan ka bilaab set product image aa leenahay. marka set product image aa dhahno waxaan dooranaynaa wuxuu ka tirsan yahay leenahay clothing oo ka tirsan yahay. intan waxaan qoraynaa macluumaad kale oo gaar ah, wadanka oo kale soo saaray inuu yahay UK. sidoo kale waxaan halkan qoraynaa in uu yahay modeka loo isticmaalo sports wear and fashion wear loo isticmaalo. waa specific descriptions oo products loogu talagalay. halkaan tagaynaa waxaan leenahay bold ka dhig, sidoo kale halkaan tagaynaa bold ka dhig. markaasna waxaan tagaynaa meesha qoran tahay visual. marka intaas abuurno halkaan waxba sicir ma sameynayno, magacii waa qornay. meesha halkaan qorannaha imaanaynaa, waxaan dooranaynaa waxaan sameyn rabnaa variable productiga aad sameynaysid waxaa waaye meeqa xabaan yeesho. okay, variable product markaa dhahday xagga inventoryga waxaa gelinaysaa productigan inta quantity taalo. haddii quantitygaaga hal iyo wax ka badan ay yihiin automatically halkaan aad dooranaysaa.
waxaa leedahay numberka ay yihiin aa gelinaysaa. Hadda aniga muu socdo inaan quantity abuuro, waxaan tegaynaa meeshay qoran tahay attributes. Marka attribute tagtid waxaa leenahay colorka ayaan attribute u sameynayaa. sidoo kale kalarada aan isticmaalaya just waa laba kalar kale yellowga iyo blue greenishka isticmaalaa, beige ma isticmaalay. Used for variation aa leeyahay, save aa leeyahay. sidoo kale halkaana tagaa, waxaa dooranaa size markaa doorto waxaa leeyahay add, asagana sidoo kale waxaa leeyahay select all, used for variation aa leeyahay. waxaa haysanaa hadda color iyo size haysanaa. waxaan tegaynaa meesha qoran tahay variation markaan doorto waxaan kasii doornaa create variation for all attributes, kadibna waxaa leeyahay okay markaa dhahay 6 variation aan lagu sameeyo ku leeyahay, kadibna lixda variation la sameeyo waxaa waaye blue greenishka oo 3 size leh iyo yellowgi oo 3 size oo kala duwan leh. marka midkaad rabtid waa iska saari kartaa. ani waxaas leenahay midkaad rabtid waa qaadan kartaa, midkaad rabtid waa ka saari kartaa. aan dhahno mid walba cabir hal ah ayaan ka qaadanaynaa, kan remove aan iska leenahay. kadib halkaasaad dooranaysaa, waxaa leedahay remove aa leedahay. labadan isticmaalaynaa. halkaana tegaynaa, waxaa leenahay sawir noo soo qaad oo blue greenishka ah. halkaan sawirkaan ka door, lacagtiisa markuu noocaan u yahay waxaa ka dhigtaa $32. isla meeshii markaa imaatid, isla blue greenishkii sawirkii ku celi, markuu 46 size-kii uu yahayna isla $36 ka dhig, $32 ka dhig. waxba price-ka u kala duwan markaan, maadaama isku mid yihiin ay ku duwan yihiin size-ka. haddaa rabtid size walbana lacag gooni aa saari kartaa. yellowgiyaan furaa, waxaan soo dooranaa sawirkii yellowga. marka yellow sawirkiisa aan soo doorto waxaa imaanaa halkan. marka uu yellow yahay waxaan leeyahay $30 aan gadaynaa. sidoo kale marka yellow uu yahay 46 cabir uu yahayna isla $30 ayaan gadaynaa. meeshan waxaa ku caddeyn kartaa inta yellow ka taalo. waxaan dhihi kartaa yellowga hadduu yaalo in stock, hadduu oolina out of stock aa dhihi kartaa. it depends, waxay ku xiran tahay sida adiga aa rabtid. haddaa rabtid manage of stock aa dooranay, stock quantity ku yeeshane halkaan aa ku caddeynay. waxaa leedahay yellow waxaan ka hayaa 8 xabo. marka intaas dooratid automatical meeshaas waxaa ka samaysay variable product saa samaysay. waxaa imaanaysaa halkaan, waxaa leedahay save aa leedahay. save markaa dhahayd halkaan imaanaynaa, kadib waxaa leenahay publish ayaa leenahay. marka aan publish dhahno waxaan dooraynaa product published meesha qoran tahay, view product aa leenahay. productgaan rabnaa inaan aragno iyo sida uu kusoo baxaayo. halkan waxaa noogu samaysan product MPL la dhaho oo color iyo size ku kala duwan. waxaa leenahay productgan yellowgiisa rabnaa oo cabirkiisa 46 ah. automatically colorkiina oo isbedelaa. 46 markuu yahay $30 waaye, 8 xaba ayaana ka taalo. marka inta aad ka dalban kartid sidaasuu noqonaa. UK lagu sameeyey, sportswear waaye. yellow for size, yellow for color, 46 for size. intaas way kala duwan yihiin productiga. marka aad rabtid inaad soo gelisid variable product oo color kala duwan leh iyo cabiro kala duwan leh. halkii product aa dhowr color leh, dhowr size na leh. qaybtaas waxaa ku qaadanaya variable product sidee loo soo geliyaa.